intayna Soomaali ahayn ka hor maxayna dhigi jireen maxay ahayn waxayna Arabta ka iimaanay intayna nahay warsingeli baan bahalla ahayn markii hore mursada ahayn bahalla ahayn mursada ku ahayd mursada bahalla farali mursada bahalla wallahi mursada bahalla السلام عليكم السلام صحابتي مeel kasta iga daawanaysan iyo meel kasta igala socotaan muuqaalka caawdooyo maxay tinteena Soomaali ahayn ka hor maxayna dhigi jireen maxayna ahayn su'aasha kale hadii maanta hadii madaxweyne laga dhigi lahaa maxaa ugu horeeya aa qaban lahayd Facebook-na soo follow gareey share ta wax kasta waa xageena waa maasantiin abay magaca Soomaali intayna la dhigi jireen ka hor maxayna ahayn والله وحنا هم بأمرنا ورمو ها ورمين هاد ورمين هاي إنه هاي هاد لكن سومالي لكن مركو ورمو يعني سؤال صح بيا ها صح وسوي صح وين ها صح ويباي أوكي سؤال كلا دي هانت دي ما أنت مدحوين لقاعد يقولها ما أقول رأي قبل هاي مدحوينا لفتر جزء قرصنا دي اللي يقولها واي ما حق سليد واي مدحوينا سومالي كنا مدحوينا ده وكا باي أصل لفتر قرصنا كده حبلا بلها ما يشكل كلام جرت حاجة شقية فرنتا تدولا أدوى المقع الصومالي تين ليشرين كور محينا هاين والله محاهم با دقاق باين دي دقاق باين هذا دقاق باتاين ما يد بلادن با كور بدقاق هاين ها كور دقاق باين علبستين با علبستين بليشرين ماي صومالي كور علبستين باين دي ها علبستين باين اوكي ساعات كلي هذه هانت ما دي مدحوينا لا قاعد لها ما حق قبل انت شقده ugu horeysa kul qaaq leed waxay حق قبل leed ba naga dhulooyinka waa toog xir laa naga dhulooyinka waa toog xir laa shaqa kale ma qaban lahayd shaqa kale shaqa kale ma qaban lahaa dalka waxa uu qaban lahaa koorta ka hor dalka waxa ma qabta qabiilka waxa qaban lahaa iyo dadkii ana horta nafsada waxa qabsan lahaa kala daaga inta kale u dhaaqi lahaa ma santahay soo dhawlaan adoo baashar la soo waxay timateena Soomaali ahayn ka hor maxay ahayn wallahi waxaan dhihi karaa ma jirin ma dhihi karaa waxaan Soomaali ahayn ka hor ma aan jirin ma malaynaa magaca Soomaali intaan loo bixin ka hor ma aan jirin ma malaynaa wala jiray maxaa dhigi jiray mise maxay ahaayeen ya wallahi ma garan karo ma jirin ma dhiga xayawaan ba adduunka noolaa baan u malaynaa adduunka laga jirin haddaan Soomaali jirin adduunka inaan joogin baan malaynaa marka soo baxanay inaan soo baxnaa malaynaa magaca ku dhalanayo kale hadii haantaad maanta madaxweyne laga dhigo shaqada ugu horeysa ku qaaqi lahayd waxay wallahi aan waxaan dhihi karaa ciidan taajir ka dhigraa ciidan taajir ka dhigraa cid kale ma aqaan buj oka inta kaliya caagada ha deeyada dhanba hadda adduunka dhanba hadda Soomaaliya qofka sanooleysta qofka sanooleysta oka cid aad u shaqay lahayd ma santahay soo dhawla ودوه wala intayna Soomaali ahayn mise magaca Soomaali ka hor maxay ahayn waxaan bilaad baan maxayna dhigi jiray magaca Soomaaliyeed hadda baxay sayman liich masay xoolo dhaqato waxaan duurka ku jiray oka tusanahay miya keen haantaada dib maanta madaxweyne laga dhigo shaqada ugu horeysa qabal mise maxaa ku dhaqaaqi lahayd qaadkan raqiisan lahaa qaadkan raqiisan lahaa kala ma qabatay miya waxa koowaad aan qaban lahaa waa taas qaadkan ku dhig lahayd shaqa kala ma qabatay cashuurtana waa ka dhaafi lahaa qaadkan cashuurta ka dhaafi lahayd qaadka ku cad miya xaqada wanaagsan Soomaaliya soo xaqada wanaagsan ilaa kula garab galo aamin ma santahay soo dhawlaan adoo walaal Soomaali intayna ahayn magaca ka hor maxay ahayn inta Soomaalina loo bixin ka hor walaal hadaa fikiro ma aragtay dad doorgal askeen dad doorgal askeen waka adum doorgal ba ahayd aniga inta doorgal ahayn dhashay inta doorka la gelin oo magaca Soomaali baxay ku baadhaltay markuu baxaa dhashay waka laakiin dadkii naga horeeya doorgal ahaa doorgal bay ahayn bahale iska ahayn su'aasha kale haanta dib maanta madaxweyne laga dhigo maxaa qabal horumarka ugu horeeya qaban lahayd imse shaqada ugu horeysa maxaa waaye shaqada ugu horeysa qaban lahaa ma aragtay qaniisiyaasha magaalada jooga dhan Soomaali jooga dhan ma aragtay hal meel isku keen wada xir laa si wadanka qaniisiyal u noqon waka shaqadaas qaban lahaa wax ka sii badan ma santahay soo dhaw su'aasha ku weydiin maxay tahay intayna Soomaali ahayn ka hor maxayna dhigi jireen mise maxayna ahayn waxayna Arabta ka iimaanay waka kadib waxay soo degnaa arda Shaam oo arda Habash Itoobiya soo degnaa kadib Soomaaliya Soomaaliya dhamma Carab ahayd mise dad qayb ma Soomaaliya kurtaba
عرب هاي عرب كسوجي maanta liijin koor carab baan hanyaa عرب هاي hadda carabta maxay naga saaray magaca Soomaali maxay noo bixiyay waxay naga saar qaarada naga saar hadda Soomaali way banahay Soomaaliya hada su'aasha kale ahaanta hadii madaxweyne laga dhigi lahaa maanta maxaa qaban lahayd mise waxa ugu horeeya ku dhaqaaqi lahayd waxay ku dhaqaaqi lahayd Soomaaliya gabayda dhan waxay ka dhigi lahayd boqortooyo ka dhigi lahayd Soomaaliya gabayda waa 50 milyan way 50 milyan waxay ka dhigi lahayd 25 milyan waxay ka dhigi lahayd waa ciidan kowda 20 milyan waxay ka dhigi lahayd waa ganacsato inta soo hirteen waxay ka dhigi lahayd shaqaalo hadda madaxweynayaasha hadda maxay ugu qaban waayeen inta madaxweynaha kullu fikirka waa inay ka maqan yahay laga yaabaa inay fikirkaas ka maqan yahay ayaa laga yaabaa fikirka u sheega u qabto ku dadka hadda waxay u sheegaysaa Soomaalida dadka madaxa waxay u sheegayaan waa anay wadanka uga maranay u hariiriyaan tubooyin waa anay beeraha u waraabiyaan waa dadka inay shaqo siiyaan waa warshadaha wadanka maqan keenaan kuwa kabaha iyo kuwa dharka iyo kuwa u keenaan iyo qaasanayaan soo dhawlaan walaal Soomaaliintayn ahayn koor maxay ahayn mise maxay la dhigi jiray Soomaaliintayn goora ama bahla ahayn bahla ama ahayn Soomaali koor waxaan ma garanayna wax sheeg maxay ahayn bal wax u qiimee wax ku qiimee ina bahla ahayn oo maleena bahal baa bariga hore adihan ahaan waa isleena oo maleena bahla duurkaas oo ku wada jirna oo maleena bahlan bay sacal gablaabo bahla hadda bahla mani laakiin marka hore waa aftadana oo su'aasha kale ahaanta hadii madaxweyne laga dhigo horumarka ugu horeeya mise waxa ugu horeeya qaban lahayd maxaan qaban lahayd horumarka ugu horeeya forever inta nolosheeda ka dhiman oo dhan maartay waxaan dhiilaa gabar walba qurxoona li soo xareeyay warbarbi libax leerta sheekho xunne forgeeda dhiilaa hakaasa gabar qurux badan soo xareeyay wax kale ma maro inta kaliya qabta ku dana madaxtooyada intaas loo shaqeeyay intaas la shaqeeyay walaal abay wadawaa walaal Soomaaliintayn ahayn koor maxay ahayn mise maxay la dhigi jiray umad nool waxa ahaan jidha umad nool Soomaali koor magaca mise wax min la dhigi jiray waxaan la dhigi jiray maxaan ku raacdaa dad nool dadka nool magaciyo wax kale ma la dhigi jiray magacaan Soomaali ka baxsan reer Soomaaliland ma la dhigi jiray reer Soomaaliland baan yes هذا سمعنا مقعد محنا قتري وين قبحين وين قبحين مقعد إن ليش ما قاطعي أيوة قاطعي سؤالك كلا هذا أنت هذا دي مدحوني اللي قاعد يقولها وح أقول رأي قبل لا يدمحاوي waxaan u qoon lahaa gaalka ay dudmin lahaa gaalka ay dudmin lahaa gaalka maxay dudmin lahayd waa fool xunta oka maxaa ku sameyn lahayd waa dudmin lahaa geebeeda magaalo caadi ka dhigi lahaa qurux badan ma ma karo dudmin lahaa marka dhulka dhigi lahayd marka dambana waa dhisi lahaa iska deyn lahaa saar waa sameyn lahaa ilaa ana madaxweynaha ilaa ana madaxweynaha farta du qoraysay farta doona qoriya ma santaay soo dhow dhawa wala Soomaali intayn ahayn koor maxay la dhihi jiray Soomaali intaan ahayn koor maxaan ahayn xayawaan baahan baa maleynaya maana aqaan waxaan kulay baan oo Soomaaliya ay sarka koor ma aqoon waxaan ahayn Soomaali baa tahay baan isku arkay anigu Soomaali baa tahay isku maqashay koor ma is ogeyn ba waxaan ahaa awooyaasha maxay ahaayeen Soomaali koor magac Soomaaliland hadda maxay awooyaashii ay shay war awoowaal hayd ayaan la kaliya aniga lagu dhaay waxay ahaayeen layma sheegin waxay ahaayeen hadeer baan soo ogaanaya nagasteen bay weydiinaysaa su'aal okay su'aasha kale adi ahaanta dii maanta madaxweyne laga dhigo maxaa qaban lahayd shaqada ugu horeeya qaban lahayd maxaa waay shaqada ugu horeeyo aan qaban lahaa nafteeda horumar gaarsiin lahaa tiisa daryeelay tu kala ku daraa anoo shiida walaal horumar dar ma gaarsiin karo warbarbi libax leerta sheekho daaraan dhisan lahaa dooqyaan dhisan lahaa 5 sano waan ku raaxaysan lahaa marka taajir noqdo baa wadda ka tagi lahaa xageed lahayd de wadamada ilaahay hormaray laakiin hadii mar labaad liigu soo celiyo markaas aanoo lacag haysta horumar idin gaarsiin karaa marka inta lama gaarsiin inta kale tiisa daryeelay tu kala ku daraa walaal soo dhawaan walaal hadii maanta madaxweynaha Soomaaliya laga dhigi lahaa maxaa ugu horeeya qaban lahayd wallahi waxa ugu horeeyo qabanaya waxay noqon lahayd in ka dabar jaro qabiil oo isaaq oo aan dib dambaba loo arag maxaa ku sameeyeen wallahi barmadoobaatay bay Soomaali ku noqdeen waa dhibaatay ku wadaan in laga dabar inaan ka dabar jaraa sameyn lahaa inta kaliya sameyn lahaa wax kale oo wax qabad oo hadda sameyn karo oo madaxweyne laga dhigo ma jiro okay su'aasha kale intayna Soomaali ahayn koor maxay ahayn waxa ahayn laga yaabaa ina murursada ahayn murursada ku ahayn murursada ahayn oo bahalla ahayn markii hore murursada ahayn bahalla ahayn murursada ku ahayn murursada bahalla waradi murursada bahalla wallahi murursada bahalla bahalla way hakir way murursada bahalla ma hakir wad nool Soomaali ah bahalla way murursada bahalla u dhigi karamay war hal murursada daray murursada wallahi murursada bahalla caafimaadka ku dhimay dumarka ma iska ma iska dumarka la ma raali ma noqon sababta murursada cayaar
hadda ama hadda raali geli mursado maxaa ku raali geliyo waa bahalle ma sidina ana sida laftiga saasha wadin sida qadan mursado ma ay kartiin murfiid والله جينكدا صار لا مره والله بلا تلا والله مره سامع فوق مرسو صوتك عيار ربادي مرسو ما عين بس بيلك فوق ما كودي شيء معناها مرسو بحلا ويه ما حريتي سسقال كده استوتسني يا يوسف ما والله مرسو بحلا ويه كودي انيغنا نيو ميشان انيغا hadal badan haan buuxsho waa sheegay inta sheegi lahaadii asoo walaal aninka soo dhow baba dagaal bad nagu soo gashay waxa uu soo galay wada qof dhan oo qabiilkiis la caayo hortaagan khalad way waxyaalaas kala qalad baa arkaani khalad ba okay su'aasha kale adii haantaada Soomaaliinteena ahayn ka hor maxay ahayn Soomaaliinteena ahayn intan he Soomaaliinteena ahayn ka hor maxay ahayn Soomaali ka hor mursadan ahayn ha okay su'aasha kale adii haantaada ya qabiilkeeda wala weydina soo gashay asar weydina kaaga mursada deetay gabadha wala dheer soo gashay adiga qabiilka mursada tawla hada saasha kada su'aasha aniga bas alku caadi lagu weydinaya su'aasha waxay tahay intayna Soomaali ahayn ka hor maxay ahayn intaana Soomaali ahayn ha ka hor maxay ahayn ka hor muslim baan ahay muslim baan ahay Soomaali ka hor magaca Soomaalidu noo bixin Soomaali intayna noo bixin ba ha maxay la dhihi jiray waxaan Soomaali ahayna lama dhihi jirin Soomaali waa Soomaali Soomaali baan ahay Soomaali wax ka baxsan mayna ahay warsangeli baan ahay warsangeli baan ahay Soomaali intayna nahay warsangeli baan su'aas kale adii haantaada maanta madaxweyne laga dhigo wax qabadka ugu horeeya qaban lahayd maxaa waaye maanta madaxweynaha hadii laga dhigo wax qabadka ugu horeeya qaban lahayd adigan ku meelayn lahaa adaan ku meelayn lahaa adigan ku meelayn lahaa madaxweynaha marka ugu horeyso laga dhigo adigan ku meelayn lahaa shaqo kale ma qabteen inaan adiga ku meelayn moogi ma santahay